dib xalay markii faraci diyale uu ku badbaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo casho sharaftii laga qasay waxa soo baxayso xog iyo macluumaad la xiriiro ragga weerarkaas fuliyay xalay Trump tiisa bay wax ka harsanayeen baa la yiri mooye khatar weyn ayuu galay oo naftiisa halis ay gashay geeska kale mucaaradka Israa'iil ayaa bilaabay inay midoobaan si ay xukunka ugu tuuraan Netanyahu mucaaradad xoog leh oo gudaha wadankiisa ah ayuu wajahaya waxaana suuragal ah in mucaaradku ay adkaadaan isla markaana ay markaasi fuliyaan weerar aan inaba caadi ahayn sidoo kale ninkii weeraray hotelkii uu ku sugnaa Trump ayaa la sheegay in ka hor weerarka qoyskiisa uu u sheegay inuu doonayo inuu tallaabo qaado isla markaana uu ka qaado Trump oo ku sugan hotelkiisa sidaas waxa baahisay Fox News oo warbixin dheeraad ah kaga hayo sidoo kale Trump waxa la leeyahay khatar ayuu wajahay si hordhaca ayuu markaasi u hadlay oo uu kaga hadlay wixii dhacay wararkaas oo dhan ayaan soo koobaynaa saaxiib soo dhow hadii aad naga cusub tahay ku soo biir channelka oo subscribe soo dheh muuqaalka kan like saar saaxiibadaan u soo share gareeyo ma santahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si hordhaca u diiday inuu ka hadlo weerarkii ka dhacay goobta uu ku sugnaa ee lala xiriirin karo dagaalka Iran dad badan markii Trump rasaas nool lagu weeraray waxay durba weerarkan u saariyeen Iran oo hadda cadaawad xoog leh ay kala dhaxayso Mareykanka gaar ahaan Trump arkaas inuu ka hadlo markii uu diiday wariye ayaa weydiiyay ma jiraan wax tilmaamo ah oo muujinaya in weerarkan rasaasta uu xiriir la leeyahay dagaalka Iran Trump ayaa wuxuu yiri oo maleynaya midaas laakiin ma hubo si buuxdana uma hubo arrintan waan ogaan doonaa intaas ayuu ku gaabsaday madaxweynaha Mareykanka oo khatar aan inaba caadi ahayn habeennimadii xalay ahayd kula kulmay goob aan ka fogeyn aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka Trump ayaa sheegay qofka loo xiray rasaastii xalay ka dhacday goob uu ku sugnaa hadda in lagu hayo gacanta inuu yahay qof aad u xanuunsan isagoo inta ku daray ma doonayno in waxyaabaha qaar oo kale ay dhacaan waxa kale oo uu sheegay muddo 30 cisho gudaheed ah in dib loo qaban doono munaasabadii xalay la joojiyay oo kamid ahayd munaasabadaha sanad walba lagu qabto aqalka cad waxaana loo qabtaa wariyaasha ka soo warrama gudaha aqalka cad iyadoo Trump uu tilmaamay munaasabad ka weyn midii xalay oo aan loo joojinayn rasaastii xalay dhacday oo kale in ay dhacayso xalay goobta isaga waa laga cararay xaaskiisa ayaa u sheegtay in khatar ay jirto isaga waxa uu yiri waxa aan moodayay waxa dhacaya saxan meel fog ka soo dhacay oo dhawaqa sidaa buu ila ekaabo yiri laakiin haweeneyda uu qabo oo aad u feejigneed taxadarna muujinaysa ayaa u sheegtay in waxan ay ka weyn yihiin saxan isla markaana xaaladdu aysan ahayn mid wanaagsan waxa uu yiri xaaskeyga ayaa igu tiri xaaladdu ma wanaagsana waa caadi ayaan ku iri kadib dhawaqa laamaha ammaanka ayaa xaqiijiyay in qof markaasi uu gudaha soo galay isla markaana uu doonayo in uu waxyeello geysto